السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وناس صاحبي شرط ودي سلامي من الباجوكتان يسول بدنا نسمو قلدان. طبعا واستانتي لبعض أنك قاعدين استماع في الصومالية استانت ما أنت ميسك النصار وحويان وعلامة الله يقارنا حكتك ويسوع حسين إن بدنا كم إذا كومنتيكا بوسيا كيكوري. طبعا علامة كومنتيكا علامة الله يقارنا حكتك وحي أقرأ تسدن وفاصلة أما كومنتسي إنجليز كله يقارنا الصومال لك وحي يقارنا حكت. علامة وعلامة أنت بدن لو استعمال كبدين هاي وأنا علامة أنت بدن لو خلد أوجيه وحضرتك كيسا وردن أم باجراف أم متحن وقف كنا في صني هدنا عن لهين وحكدا هذا وحنا علامة حكت ومد لو أذيك سج بدين هاي وحنا لو أذيك سدا محمد وحنا لو يقانا ورد تحديدا وحنا لقي أنت بدن عمل محمد لقي أنت بدن ويرها تحديدا سبعة صاير فيري علامة ومد لو استعمال كبدين وكو waxay nagashaa inta badan weerta dhexdeeda jumlada ay dhex gashaa iyadoo bilowna ma noqoto gadaalna ma gasho ugu sida astaamaha kala qaarkood ay yihiin sidoo kale waxay la geliyaa inta badan waxyaabaha mutaxan ama wada xiriiro waxyaabo kala go'an iyadoo lama geliyo waxyaabo xiriira ayaa la rabaa in lagu kala saaro si waxaan loo ogaado inay yihiin laba baab ama laba qaab oo islahayn tusaalahan si fiican u fahmeen eeg wuxuu yiri ardaygan waxa yimid ninka loo yaqaan cali حكت وهكذا يمنك الله يقانا فارح حكت وهكذا يمن حسين يا فاطمة وقول سمع سقفيري علي يا فارح هدي عند أحد هكذا لقيلين وحيكد أنت هاي علي فارح يا يمد ويستلم بيكد أنت هاي لكن هذا وحكي العلم حوي أنا علي وقف جارة فارح وقف جارة صوبتك أنت معي علامة حكت كيا وحسب أيديس هدي عند هكذا لقيلين وحصاب حي علي فارح حسين iyo faaduma yimid waa macnaha ali faarax xiseen waa nin magaciisa waa biis la abtiriyay iyo faaduma baa timid laakiin hadda maxay ka dhigan tahay waxa yimid ali waa nin gaara faarax soo kan ninka labaad xuseen iyo faaduma yimid meeshaan hakad lama baan ugu xuseen in hakad gelisa xaraan way sababta maxaa weeye calaamadan maxaa erigan iyo ayaaba u dhiganta hakadka oo iyadoo lafteeda waxay dadka qaar kood waaba hakadba marka muhiim waa ali dadkan way mutaxan yihiin ogow waxaan uu kala gooyay calaamadaas salaad labaad waxaan tagay suuqa waxaan soo gatay alaabtan fiiri waxaan soo gatay bur hakad bariis hakad sonkor hakad caano maxay markaas iyo baa timidi oo marka lama baahna bas waay iyo haday timaad hakad lama baahna inta marka maxaa weeye hadaada kala googooyin wax macna sameey caano bariis bur sonkor iyo oomo wax macna ma sameynayaan laakiin hadii aad kala googooyso calaamada aad geliso macna ay soo korinayaan waxa kale oo la adeegsada calaamadan inta bana ereyda conditionka ama waxyaabo xiriiriyaasha afka Soomaaliga loo yaqaan hadii iyaguna ay galaan weerta calaamadaas dabadooda ayaa la dhigaa sida waxa kamid calaamadaha wax xiriiriya ama astaamaha ama ereyda wax lagu xiriiriyo waxa kamid ah marka hore ereyga marka hore hadaa aragtid gadaashiisa waxa dhigtaa calaamadan hakad ka dhig waa qasab in la geliyaba marka hore waxaan ahay hebel marka hore marka tiraadaba calaamada hakad ka geli laba sida darteed hadaad aragtana waa la mid haye shay hada aragtina waa la mid calaamadaas galeeyaduna ugu dambeyntii waa la mid ugu horeyntii waa la mid ereyda conditionka am wax xiriiriyo oo dhan waa taqaan isleeyahay iyaga hada doontaan 10 baan ka sameeyay ilaa 20 baa la gaarsiiyaa iyo wixii la mid ah ayaa la geliya calaamadan qodob kale oo muhiim ah oo aan ka tagay hadaan qorin laakiin aan afka kaaga sheegay waxa weeyaan background akhriisa meel kasta oo aad background ka akhriso aad ku nasato ama aad ku neefsato hakad iska geli بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناسا صاحبي المال جوكتان ونفس تمانو جوكتان هكذا نقولي ميل والباجرافك أما تدعو لي أنت آخر الصوت كل نفسها أستانتا هكذا كجلي إن شاء الله تعالى وما ستين عشان كنت سكوي كمانتا أستانتا حاجة إذا كان يلي نكسوها إن شاء الله تعالى وصفر سمي وما سنتين